بعون الله تعالى. xuutiyiinta dalka Yemen ee Iran ay taageerto ayaa talaadadii wacad ku maray weerar dheeri ah oo ka dhan ah Israel haddii ay sii wado dagaalka ka dhanka ah Hamas ee Gaza ayagoo sheegay in mar horeba ay diyaarado drone iyo gantaalada plastic ah ku weerareen Israel. ciidamada qalabka sida Yemen waxay xaqiijinayaan inay sii wadi doonaan duqeymaha tayada leh ee gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ilaa ay ka joojinayaan gardarooyinka Israel ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xuutiyiinta oo laga sii daayay TV-gooda Al-Masira. bayaanka ayaa lagu sheegay in xuutiyiinta ay tiro gantaalo balastiga oo baaxad leh iyo tiro badan oo diyaarado hubeysan ay u direen dhanka Israel talaadadii waxayna sheegeen inuu ahaa howlgalkii saddexaad ee noocan oo kale ah oo ay la beegsadeen Israel tan iyo markii weerarka Gaza uu bilowday 7 Oktoobar kadib markii ay dagaalyahanada Hamas ay qaadeen weerarka ugu xumaa ee la beegsado Israel. goor sii horeysay militariga Israel ayaa sheegay in diyaarada cadow ay soo gashay hawada magaalada Ilta ee ku teedsan Badda Cas iyaga oo goor dambana sheegay in dhexda laga qabtay gantaalo lagu soo weeraray Israel. dhammaan halisaha hawada waxaa lagu qabtay meel ka baxsan dhulka Israel ayaa lagu yiri bayaanka militariga Israel. Abdulaziz bin Habtar oo ah ra'iisul wasaaraha dowladda xuutiyiinta ayaa talaadadii sheegay inay qayb ka yihiin tiirka iska caabinta ee ka dhanka Israel oo ay ku jiraan kooxaha Tehran ay taageerto ee Lebanon, Suuriya iyo Ciraaq ayna kula dagaalamayaan gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. waa hal tiir waxaana socda isku xirnaan qolo howlgal wada jira iyo talis wada jira oo ka dhaxeeya dhammaan howlgallada ayuu yiri. ma ogolaan karno in cadowga sahnuuniyadda ee kibirka badan uu dadkeena laayo. xuutiyiinta ayaa caasimada Yemen ee Sanca iyo qaybo badan oo dalka ka mid ah qabsaday 2014. dowladda Mareykanka ayaa jawaab taxadar leh ka bixisay hadalka xuutiyiinta. cid kasta oo ku fikiraysa inay ku biirto dagaalka ma ahan inay sidaas samayso. waxaa sidaas wariyaasha u sheegay Matthew Miller oo ah afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka. afhayeenka Pentagonka sareeyo guud Barton Reeder ayaa xaqiijiyay in Israel ay soo riday gantaalada ridada dhexe oo ay soo rideen xuutiyiinta. sidan hore u sheegnay waxaan rabnaa inaan ka hortagno dagaal ballaaran oo goboleed ayuu yiri Reeder. Israel ayaa xuutiyiinta ku eedeysay weerar ay fuliyeen diyaarado drone ah Jimcihii iyadoo sheegtay in diyaaradaheedu ay dhexda ka qabteen bartilmaameedyo cadow oo ku sii jeeda koonfurta Israel. isla waqtigaas 6 qof ayaa dhaawacyo fudud ka soo gaareen burburka dhismo ku yaala xuduudda Elta oo u dhow magaalada dalxiiseedka ee Taba ee dalka Masar sida ay sheegaan ciidamada Masar xilligaas. 19 Oktoobar ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay inay soo rideen 3 gantaal oo nooca dhulka laga ridaa iyo dhowr diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn oo xuutiyiintu ay soo tuureen lagana yaabo inay ku sii socdeen Israel. isku soo duuduubo sahnuuniyiinta ayaa dhan walba u jabay haddii ay noqon lahayd dhanka siyaasadda militariga iyo dhaqaalaha iyagoo maalinba maalin ka dambaysa ay sii yaraanayso taageerada ay ka helayaan saaxiibadoodii hore ee ugu tunka weyn yahay dalka Mareykanka. waxaa marba mar ka dambaysa quus muujinaya saaxiibadooda kadib marka laga yaabo gultarooyinka isxixiga ay la kulmayaan ciidamada iska caabinta ee sahnuuniyiinta Israel.